kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin lahaantiinba meel walba oo dunida ka joogtaan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyey aynu ka helayna magaalada Boosaaso oo saake mar kale dib ugu qarxay dagaal xoogan oo saake dib ugu qarxay Boosaaso dagaal culus ayaa saake mar kale dib ugu qarxay magaalada Boosaaso kaasi oo u dhaxeeya ciidamada dawladda Puntland iyo kuwa taliyihii hore ee ciidamada BSF General Maxamuud Cismaan Diyaano dagaalka saake ayaa bilowday abaar 5 aroornimo waxaana magaalada aad looga maqlayay hubka culus oo isu adeegsanayaan ciidamadii shalay dagaalka isaga horyimid dagaalka ayaa lagu soo waramayaa inuu si gaar ah uga socdo xarunta BSF oo ay ku sugan yihiin General Diyaano oo diiday xilka qaadis uu madaxweynaha Puntland uu ku sameeyay iyo ciidamo uu wato dagaalka ayaa dib u bilowday xilli ay socdeen dadaalo lagu doonayo in xiisada taagan lagu dhameeyo xal nabadeed madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa horey u sheegay in ciidamada dawladda iyo maleeshiyada hubeysan aanay wada joogi karin Puntland dagaalkii shalay ayaa waxaa ku naf waayeen 10 qof oo isugu jira askartii dagaalantay iyo dad shacab ah iyadoo 40 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sida ay muujiyeen xogaha aan ka helayno goobaha caafimaadka dad badan ayaa ilaa xalay ka barakacay xaafadaha magaalada Boosaaso kuwaasi oo cabsi ka qabay in dagaalku uu sii socdo saameyn ku yeesho nabadgelyadooda waxaa guud ahaan xirmay goobihii ganacsiga dekada iyo duulimaadyada garoonka diyaaradaha iyo isu socodka gaadiidka dadweynaha ee magaalada Boosaaso waxaa jiro baaqiyo ay dirayaan culimada nabadoonnada iyo waxgaradka oo reer Puntland ah balse ma jirto ilaa iyo hadda wax horumar ah oo laga gaaray in la joojiyo dagaalka ka socda magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dalbaday amar degdeg ah oo ku saabsan dagaalka ka socda Boosaaso nabadoon Cabdulqaadir Axmed Ibraahim Xarago ayaa si adag uga hadlay dagaalka ka socda magaalada Boosaaso ee maalintii labaad galay kaasi oo u dhaxeeya ciidanka amniga Puntland iyo ciidamada daacad u ah agaasimihii hore ee ciidanka BSF Maxamuud Cismaan Diyaano waxa uu sheegay in mas'uuliyadda dagaalkaasi iyo wixii dhib ah ee ka dhacay magaalada Boosaaso ay qaadan doonto xukuumadda Puntland ee ugu horeeyay madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani iyo cid kasta oo geysatay xabaddu xal ma ahan wax lagu fikirana ma ahan wax garadkii guud ahaan bulshada reer Boosaaso waxaan ugu baaqayaa inay xakameeyaan oo ay arrimaha meesha ka jiraan xaalkooda iyo wanaagooda ay ka shaqeeyaan ayuu yiri nabadoon Cabdulqaadir Xarago ayaa sidoo kale ku baaqay in labada dhinac ee ku dagaalamaya Boosaaso ay joojiyaan xabadda isla markaana laga wada shaqeeyo sidii xiisada looga xalin lahaa wax walba oo xal noqon kara madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani waxa uu ugu baaqayaa inuu amar ku bixiyo in dagaalkaasi uu joojiyo kuna dayo wax walba oo arrintaasi laga gudbi karo sidoo kale saraakiisha BSF ay xabad joojin sameeyaan oo ay deganaan ku soo celiyaan magaalada Boosaaso waxa uu shaaciyay shir degdeg ah oo gobolka bari isugu imaanayaan kaasi oo uu sheegay inay aayahooda ugu tashanayaan si loogu gudbo xiisada dagaal ee ka taagan magaalada ganacsiga ee Puntland ugu dambeyntii waxa uu carabka ku adkeeyay in meel looga soo wada jeesto dagaal ka dhaca gobolka bari iyo guud ahaan Puntland isla markaana lagu xisaabtamayo dadka mas'uulka ka ah Puntland oo sheegtay in ciidamo gorgor ah ay qayb ka yihiin dagaalka Boosaaso iyadoo ay weli xaalad kacsanaan ay ka taagan tahay magaalada Boosaaso ayaa maamulka Puntland waxa uu dawladda dhexe ee Soomaaliya ku eedeeyay inay qayb ka yihiin dagaalka ka socda magaalada Boosaaso uuna u dhaxeeyo ciidan ka amar qaato Siciid Dani iyo ciidanka BSF magaalada Boosaaso Cabdiqani Ibraahim Ismaaciil oo dawladda u hadlay ayaa sheegay in ciidamada gorgor ay hubiyaal ku garaaceen qaybo ka mid ah magaalada Boosaaso Boosaaso ayaa sheegay in ciidamada BSF oo uu ku sheegay inay yihiin kuwa diiday amarka madaxweynaha Puntland ay dagaal ka bilaabeen Cabdiqani ayaa sheegay in ciidamada uu hogaaminayo Maxamed Cabdullaahi Diyaano ay diideen waawaantii socotay sida uu hadalku u dhigay wuxuuna ku eedeeyay inay magaalada ku garaaceen hubiyaal si ay u barakiciyaan dad shacab ah waxa uu sheegay in maamulka Puntland uu ka dhamaaday dulqaadka isla markaana ay hadda diyaar u yihiin inay awood ciidan u adeegsadaan meelaha ay joogaan ayaa looga tagayaa hal guri ayay ku jiraan oo ay ka dagaalamayaan hubiyaal ay meel walba ku rideen dhibaatada ay shacabka u geysteen waxa mas'uul ka ah kooxda mardiidka ah ayuu yiri duqa magaalada Boosaaso xaaladda magaalada Boosaaso ayaa kacsan iyadoo ay weli halkaasi ka socdaan dagaalka u dhaxeeya ciidanka amniga iyo kuwa BSF waxaana jira dad badan oo shacab ah oo ku dhaawacmay rasaasta la isweydarsanayo boqolaal qoys ayaa sidoo kale guryahooda ugu barakacay dagaalka ka socda Puntland qaar kale oo badan ayaa awoodi la in ay guuraan iyadoo jidadka ay xirmeen
Mareykanka oo war ka soo saaray dagaalka Boosaaso, dowladda Mareykanka ayaa si adag uga hortimid dagaalka shalay ka qarxay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kaas oo u dhexeeyay ciidanka BSF iyo kuwa Puntland. Qoraal ay soo saartay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka Boosaaso, isla markaana lagu soo laabto miiska wadahadalka. Waxaan ku baaqaynaa si degdeg ah in loo joojiyo colaadda Boosaaso, laguna soo laabto wadahadallada si loo helo xal nabadeed oo lagu wada xaajooday. Sii socoshada dagaalka waxay waxyeello dheeri ah u geysanaysaa Boosaaso shacabkeeda, ayaa lagu yiri qoraalka ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ka soo saartay dagaalka Boosaaso. Mareykanka ayaa horey ugu walaacsanaa in xiisadda ciidanka BSF iyo madaxweyne Dani u dhexeeyo ay isku rogto dagaal sida shalay ka dhacday magaalada Boosaaso, taasi oo ciidanka ka weecin karta dagaalkii lagula jiray kooxaha argagixisada.